bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel walbo caalamka aad ka joogtaan kusoo dhawaada qodobada wararka xilligan ugu doorka roon telefishinka Somali Cable oo si gaar ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi anigoo Cabdullaahi Axmed Cali ayaana u diyaaraa qodobada aad daawan doontaan kuwooda ugu doorka roon waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsaday inay ka taageeraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa wuxuu abaalmarino kala duwan oo guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha ugu horeysa ka galay tartanka Quraan akhriska bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaalada Hargeysa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa wuxuu deeq raashin u gaarsiiyay dadka curyaanka iyo kuwa aragga la Hormuud Foundation ayaa deeq lacag isugu jirta iyo raashin iyo xoolo nool ay u qaybisay ciidanka naafada xoogga dalka Soomaaliya iyo maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho xaaladda ammaan iyo ganacsiga ayaa aad u soo wanaagsananaysa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goordhow daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsaday inay ka taageeraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sida uu ku soo waramayo wariyaheena Ayuub Cabdikariin Cali madaxweynaha dowladda Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo shirjiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Garowe ayaa ka hadlay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee deegaanka Afrur ku dhexmaray ciidamada difaaca Puntland iyo kooxda Al-Shabaab madaxweynaha oo faahfaahin kooban ka bixiyay dagaalka isla markaana tacsi u diray dadkii ku dhintay dagaalkaasi ayaa wacad ku maray in deegaanada Puntland ay ka sifayn doonto ururka Daesh iyo kooxda Al-Shabaab inay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab madaxweyne Gaas mar uu ka hadlayay sida uu dagaalka shalay u dhacay ayuu xusay in kooxdaasi weerar ku soo qaaday tuulada Afrur isla markaana ay xasuuq u geysatay dad shacab ah sida la socotaan waxa shalay oo taariikhdu tahay 8 bisha Juun 2017 ay burcadimeedka shabaab ku soo qaadeen weerar gaadma ah tuulada Afrur iyo xerada daraawiishta ee Puntland waxay weerareen dad muslimiin ah oo cibaadeysanaya oo ku jira bil Ramadaan waxaan bogaadinayaa oo ammaan u soo jeedinayaa ciidamada Puntland ee sida geesinimada leh u difaacay dadkooda iyo dalkooda kuna shahiiday weerarkaas wuxuushnimada ay soo qaadeen Al-Shabaab waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamada difaacayay dalkooda iyo dadkooda iyo saldhigooda ciidan waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii shacabka ahaa ee ay ku xasuuqeen tuulada Afrur sharwadayaasha waxaan u sheegayaa dadweynaha Puntland meel kastoo ay joogaanba inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah burcadimeedka ku soo duulay dalkooda dowladda Puntland iyo shacabkeedu way isku filan yihiin waana ku filaan jireen inay iska difaacaan sharwadayaasha waxaa balanagu ah oo ballan qaadaynaa in dhulkayaga aanu ka sifayno shabaab Daesh iyo inta u soo duulaan tagtay in ay gumaado shacabkayaga madaxweynaha dowladda Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay inuu magacaabay guddi heer wasiir ah oo baaritaan ku sameeya sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka kooxaha argagixisada waxaan shalay magacaabay guddi wasiir ah oo soo qiimeeya dhibta dhacday kana qayb qaata gurmadka dadka dhaawaca iyo dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadaas foosha xun dowladda federaalka ee Soomaaliya ee beesha caalamka ayuu ka dalbaday madaxweyne Gaas inay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka inay nagu taageeraan dadaalka adag ee aan kula jirno la dagaalanka sharwadayaasha u soo tafaxaytay inay gumaadaan shacbiga Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ayuub Cabdikariin Cali Somali Cable TV Garowe madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ka codsaday inay ka taageeraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sida uu ku soo waramayo wariyaheena Ayuub Cabdikariin Cali
madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo shir jiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Garowe ayaa ka hadlay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee deegaanka Afrur ku dhexmaray ciidamada difaaca Puntland iyo kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha oo faahfaahin kooban ka bixiyay dagaalka isla markaana tacsi u diray dadkii ku dhintay dagaalkaasi ayaa wacad ku maray in deegaanada Puntland ay ka sifayn doonto ururka Daesh iyo kooxda Al-Shabaab inay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. madaxweyne Gaas mar uu ka hadlayay sida uu dagaalka shalay u dhacay ayuu xusay in kooxdaasi weerar ku soo qaaday tuulada Afrur isla markaana ay xasuuq u geysatay dad shacab ah. sidaad la socotaan waxaa shalay oo taariikhdu tahay 8 bisha Juun 2017 ay burcadimeedka shabaab ku soo qaadeen weerar gaadma ah tuulada Afrur iyo xerada daraawiishta ee Puntland. waxay weerareen dad muslimiin ah oo cibaadeysanaya oo ku jira bil Ramadaan. waxaan bogaadinayaa oo ammaan u soo jeedinayaa ciidamada Puntland ee sida geesinimada leh u difaacay dadkooda iyo dalkooda kuna shahiiday weerarkaas wuxuushnimada ay soo qaadeen Al-Shabaab. waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamada difaacayay dalkooda iyo dadkooda iyo saldhigooda ciidan. waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii shacabka ahaa ee ay ku xasuuqeen tuulada Afrur sharwadayaasha. waxaan u sheegayaa dadweynaha Puntland meel kastoo ay joogaanba inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah burcadiimeedka ku soo duulay dalkooda. dowladda Puntland iyo shacabkeedu way isku filan yihiin waana ku filaan jireen inay iska difaacaan sharwadayaasha. waxaa ballan nagu ah oo ballan qaadaynaa in dhulkayaga aanu ka sifayno shabaab Daesh iyo inta u soo duulaan tagtay in ay gumaado shacabkayaga. madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay inuu magacaabay guddi heer wasiir ah oo baaritaan ku sameeya sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. waxaan shalay magacaabay guddi wasiir ah oo soo qiimeeya dhibta dhacday kana qayb qaata gurmadka dadka dhaawaca iyo dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadaas foosha xun. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ayuu ka dalbaday madaxweyne Gaas inay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka inay nagu taageeraan dadaalka adag ee aan kula jirno la dagaalanka sharwadayaasha u soo tafaxaytay inay gumaadaan shacbiga Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوب عبد الكريم علي صومالي كابل تي في قروي. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa abaalmarino kala duwan guddoonsiiyay ardaydii kaalimaha ugu horeysay ka galay tartankii Quraan akhriska oo bisha barakeysan ee Ramadaan sanad walba lagu qabto magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramayo wariyaheena Faysal Maxamed Aadan FIFA. waxaa 48 saacadood ee laga soo gudbay si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ka soo baxday tartankii Quraanka Kariimka iyo qowlka Eebe ee sida taxana uga soconayay bishan barakeysan ee Ramadaan gudaheeda masjidka Calimataan ee faras magaalada Hargeysa kana qayb galaan sanad kasta arday kala matalaysa gobolada iyo degmooyinka dalka. sanadkani oo ay ka qayb galeen 18 arday ayaa waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ka soo baxday. Cabdixamiid Sheekh Mustafa Aadam oo ka socday gobolka Togdheer ayaa noqday ardaygii ugu sareeyay kaalinta koobaad ka gala tartankan. Shaafici Jaamac oo ka socday gobolka Maroodijeex ayaa ku guuleystay kaalinta labaad halka kaalinta saddexaadna uu ku guuleystay Maxamuud Aadan Cali oo ka socday gobolka Togdheer. waxaa kaalinta afraad ku guuleystay Cabdilaahi Jaamac Ismaaciil oo ka socday gobolka Sanaag. tartankan oo sanad kasta uu maalgeliyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa sida caadada waxa uu xarunta qasiga madaxtooyada Soomaaliland ugu sameeyay guddidii gardaadinaysay isla tartankan iyo sidoo kale ardayda afarta ay ku guuleystay kaalmaha hore. casuumad isugu jirta casho sharaf iyo sidoo kale afur waxaana halkaa ka soo qayb galay goobjoogna ku ahaa badi culimadiinkii tartanka dhexdhexaadin iyo sidoo kale ardaydii kaalmaha hore ka galay qaybo kamid ah waalidiintooda iyo sidoo kale macallimiintii muddada wax soo baraysay. warfidyenada oo goobjoog ku ahaa ayaa waxaa halkaa ugu horeyn ka hadlay Sheekh Maxamed Aadan oo kamid ahaa
culimadii gardaadinaysay tartankan waxaan u mahad celiyey madaxweynaha somalilan iyo cid kastoo ka qayb gashay siyaanbaqaadka barnaamijkan waa tartankii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu qabtay in magaciisa loogu magac daray tartanka madaxweynaha ee qur-aanka kariimka ah sanadkii shanaad ayuu marayaa 2013 baynu soo bilownay iminkana waa 2017 gobolada dalka ka qayb gala kuwii waaweynaa ee hore kuwa kalena gobol waliba ka u dhow ayuu soo gala waxa runtii cajiiba oo la yaab leh sanad walba madaxweynuhu oo wasaaradda diinta runtii ay uga wakiil tahay iyo madaxtooyada runtii iyo wasiirka madaxtooyadu ay runtii dadaal badan geliyaan tartankan waxa ardayga koowaad la siiyaa gaariga waa la isla bartay waxa si xusid mudan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo sanadkani waa sanadkii ugu dambeeyey wuxuu doonayaa inuu ku sii khatimo dhalinyarta ahlu qur'aanka ah ducadooda iyo farxadooda sanadkan wuu kordhiyey sida aynu horeba u sheegnay labada arday oo u sarreeya waxa uu ugu daray inuu cumro geeyo wasiirada wasaaradaha diinta ee qaafta sheekh khaliil cabdilaahi axmed warfaafinta cismaan cabdilaahi saxadiid cadaan iyo wasiirka madaxtooyada somalilan maxamuud xaashi cabdi ayaa dhankooda erayo kooban ku cabiray tartankan iyo sidoo kale ahmiyadda gaar ahaaneed ee ka xukuumadaan ay ka leeyihiin dhiirigelinta da'yarta ku howlan xifdinta qur-aanka kariimka iyo qowlkeebe mudane madaxweyne maanta caalamka waxaa la isku haystaa ilaahay iyo cid raacday iyo ilaahay cid ka soo horjeesatay waxaa nasiib wanaag ku ah maanta in markhaati ku yihiin haddii culmo tahay iyo haddii madax kale tahayba hoggaanka fiican ee runtii naxariista leh ee qalbiga uu dabacsan yahay ee maanta aad ummaddan ku walaalaynayso aadna horta waan ugu faraxsanahay burco wanka gashay ma fahanteen burco inay wanka gashayna aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa shuban biyoodka aan maalintii dhawaad u gurmanayno inuu dalkeenna oo dhan ilaahay ka qaado waxaanu iyadana hoosta ka xariiqaynaa oo idinku waaninaynaa inaydaan qaadan afkaaraha xag jirka ah ee sida qaldan diinta loo turjumo maanta dad badan oo inaga mida oo muxuu ahaayey inala mida ayaa si qaldan diinta u turjumay oo dhibaato badan ku haya mujtamaca muslimiinta ah waxaanu idinka rajaynaynaa oo aanu idinku waaninaynaa inaydan dariiqaa marin madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa halkaa gunahanadkii kula hadlay tartamayaashii iyo sidoo kale culimadiinkii iyo madaxdii qaybta ka ahaa ee kulankan goobjooga ku ahaa isagoona hambaliyey ardayda kaalmaha hore ku guulaystay hambalyeynayaa aad baan ugu mahadnaqayaa marka hore xafladda taanta isugu timid oo dhan aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada ku guulaystay tartanka qur-aanka kariimka ah aad baan ugu hambalyeynayaa culimadii ka shaqaysay iyo intii ka shaqaysay oo dhan ilaahna waxaan ka baryaa inuu meel waasayna mariyo waxaana intaa kadib madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo halkaasi ku guddoonsiyey gaadhi nooca noohada loo yaqaano cabdixamiid sheekh mustafa aadam oo ah ardaygii kaalinta koowaad ku guulaystay oo ka soo jeeday gobolka togdheer waxaa intaa kadib iyagana dhankooda la guddoonsiyey abaalmarino qaaliya ardaydii ku kala guulaystay kaalmaha labaad saddexaad iyo afraad waa markii shanaad ee sidan oo kale madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo tani intii xilka madaxweynenimo ee somalilan uu hayay oo uu maalgelinayay tartankan xifdiga qur-aanka kariimka sidan oo kale u guddoonsiyo ardayda kaalmaha hore ka gala abaalmarinahan qaaliga isla tartanka xifdiga qur-aanka kariimka waana arrin ifafaalo horleh u noqon karta kobcinta koruqaadka iyo sidoo kale siyaanbaqaadka arday tiro badan oo xilligan ku foogan xifdinta qur-aanka kariimka iyo qowlkeebe oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga somali cable magaalada hormuud foundation ayaa deeq isugu jirta lacag raashin iyo xoolo nool u qaybisay ciidanka naafada xoogga dalka Soomaaliya iyo maxaabiista ku jira xabsiga dhexe magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdicasiis Cabdullaahi Riyaali ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho hormuud foundation ayaa maanta mar kale waxay deeq gaarsiisay xabsiga dhexe iyo naafada xoogga dalka Soomaaliya deeqdan uu isugu jirtay raashin iyo lacag kaash ah ayaa labadaasi qayb la gaarsiiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa la gaarsiiyay deeq isugu jirtay bur bariis sonkor saliid timir dhowr neef oo geela iyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen dadka maxaabiista oo isugu jiray rag iyo dumar gudoomiyaha hormuud foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaana sharaxaya deeqda xabsiga dhexe la gaarsiiyay maanta xabsiga dhexe maanta waxaan ku wareejinaynaa raashin kala duwan dharka ay maxaabiistu ay ku ciidi lahaayeen markii la gaaro ciida raashinkaas oo ka kooban
200 oo loor oo bariis ah 100 loor oo sokor ah 100 loor oo bur ah 1 litir oo saliid ah 5 jawaan oo caleenta shaah ah 10 kartoon oo ah cabitaanka iyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen dhammaan maxaabiista ku jirta xabsigan haddii ay ahaan lahayn rag iyo dumar intaba xogeeyaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda Dr. Ismaaciil Jimcaale iyo taliyaha ciidanka asluubta General Sheikh Hussein ayaana ka mahad celiyay deeqdaasi iyagoo soo dhaweeyay deeqda Hormuud Foundation maanta ay gaarsiisay maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee Muqdisho. runtii waxa weeyaan Hormuud Foundation waqti kasta cariiri aan ku jirno saasay noogu soo gurman jireen maantana waxa weeyaan alxamdulillah waa maalinta ugu fiicnaada Ramadaan oo ninka wax sadaqaysto maaragtay ilaahay maaragtay uu jaasinayo faa'iido Ramadaan uu leeyahay oo maaragtay muxuu ahaa dhanka rabbi maaragtay looga jaasinayo qofka marka jaasintooda ilaahay jannaha ka dhigo waxa way waa u duceyneynaa wax badan bay wax noo keeneen wax badan bay wax nala qabteen haddii hataa meesha shuban dhaco mise wax kala imaado saasay noogu soo gurman jireen haddaan nahay bahda cadaaladda aad iyo aad aan ugu faraxsannahay hadal badan kama furna waa muxsiniin ugu talagalay inay dad masaakiin ah u baahan ay saacidaan anana waxaan nahay mas'uuliyiinta qaranka inay ka guddoonto ugu tala gashay ama ayba tahaba marka waa ka guddoomaynaa waana insha Allah tacaala si rasmi ah ama official ah looga guddoomay sidoo kale Hormuud Foundation waxay maanta deeq gaarsiisay naafada xoogga dalka oo ku sugan cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxayna deeqdaasi ahayd lacag dollar oo gaaraysay ilaa $4,000 afayeenka naafada xoogga ayaana ka mahad celiyay deeqdaasi lagu wareejiyay waxaan meeshaan uga hambalyeeynaa shirkadda Hormuud iyo mas'uuliyiinta noo yimid ee walaalahaya Hormuud Foundation iyo mas'uuliyiinta walaalahaya ee noo yimid ee noo wada raashinkan iyo lacagtan afurka ah ee noogu soo tala galeen horena naloo siin jiray maantana ay noogu soo tala galeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana ka guddoonnay waana haysanaa walaalahayana waxaan leenahay أجر يا حسنات الله إذا كسي شركتنا وحنا لنا هرمر بدن الله ma ahan markii ugu horeysay oo deeq gargaar ay gaarsiiso Hormuud Foundation qaybaha bulshada ku wada jilcan iyo xabsiga dhexe waxaana Hormuud ay deeq noocan oo kala maalmihii ugu dambeeyay gaarsiinaysa qaar kamid ah dadka ku dhaqan cisbitaalada xiriyaha barakaca iyo kuwa liita Abdicays Cabdullaahi Maxamed Abdicays Riil Somali Cable Muqdisho xisbiga mideynta Juba Shabeelle ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah la gaaro dadka ay abaartu ku saameysay qaar kamid ah gobolada dalka Soomaaliya wariyaheena Cabduqaadir Qays ayaa warbixintan inooga soo diray dalka Sacuudi Carabiya kulan ballaaran oo isugu yimaadeen xubnaha xisbiga mideynta Juba Shabeelle fadhigoodu yahay dalkan boqortooyada Sacuudiga isla markaana looga hadlayay xaaladaha abaaraha ay ka jira deegaanada Jubbooyinka iyo Shabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Jidda ee wadankan boqortooyada Sacuudiga shirkan ayaa waxaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay geysteen abaaraha ka jira deegaanadaasi xisbiga uu matalo isla markaana gurmad degdeg loo gaarsiin lahaa iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka tahriibka gudoomiyaha xisbiga mideynta Juba Shabeelle Maxamed Saalax Muqtaar iyo xogay Cabduqaadir Aweys Sheekh Canjeex oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen anigoo ah walaalkiina Maxamed Saalax Muqtaar gudoomiyaha xisbiga mideynta Juba iyo Shabeelle waxaan baaq idinku dirayaa walaalaheena Soomaaliyeed dunida daafaheeda ku nool caalamka in ay gacmaha isqabsataan heshiisaan hadduu ilaahayga awood leh karaal noqdo anagoo ka mid aha xisbiga mideynta Juba iyo Shabeelle waxaan diyaar u nahay awaaraha soo noqday iyo dhibaatada Soomaaliyeed ku habsatay horta xisbigeena ma sha Allah aad iyo aad ayuu u shaqeeyay waxyaalo badan horta hore uu soo qabtay oo soo shaqeeyay sida markii biilaanta ka dhacday Soomaaliya oo la waayay wabigii oo Juba iyo Shabeelle u dhaxeeyay waxyaalo badan oo xisbiga qabtay ka mid ah biidaamintii oo wadamada Soomaaliyeed meel ka mid ah ayaa jirto oo biyo geeyay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin haddana waxaan si jecelnahay in aan kaalin weyn aan ka geysano walaalaheena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kii Juba jiro iyo kii Shabeelle joogo in aan garab weyn ama kaalin weyn aan ka qaadano xilligan xun oo abaaraha ah oo ka taagan Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatada soo noqoto oo ugu horseedka ay tahay abaaraha dadka waxaa barakiciyo abaaraha iyo baahida dadka barakiciso qof hadduu abaar haysto meel kastuu aadaya dhibaatadii waxay gashay in ay dumarkii iyo caruurtii ay tahriibaan ama ay Liibiya tagaan oo dhaxal iskiga qabsado
ama ay yemen dhulkaas aadaan ee badda ay ku dhammaadaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan farayaa in ay dhibaatadaas ay ka hortagto dhibaatadaas in ay gacan weyn ka geysato oo dhibaatada ay ku soo noqoto dalka Soomaaliyeed ama sumcad darrada ugu dhacday sida dadka sooman waxna aan haysin ana awoodin inay anfur ay gataan waxay ku anfuraan inay ay heli karin ayuu xisbigu taagan yahay inuu anfuriyo hadduu Ilaahay raali ka noqdo wuxuu ka qaban karna wax qabto madaxa maaliyadda xisbigaasi kulmiye maxamed samow gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cabdi nuur yuusuf iyo farxiye macaane oo iyagu halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen taasoo keenaysa ummadeena Soomaaliyeed sumcadoodii ay ku daadatay dhulka ay daadsan tahay ummad badan tahriib ku baxday qaar badda ku dhinta iyo qaar dugaagta ay saxaraaga ku disha sida aawadeeda markaanu aragnay dhibaatada Soomaaliya ku habsantay sumcadda Soomaaliyeed ay qadka ka bixayso ayaanu waxaanu garanay inaan sameeyno xisbigan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan iyo meel kasta ku sugan yihiinba waxaanu idinka codsanaynaa Soomaaliya inay isu tanaasushaan aanu daryeelno ummadda Soomaaliyeed tahriibka ku baabaaday dugaagta iyo muxuu ahaay badaha ku dhamaaday inaanu eegno aanu walaalnimo isu qabsano Soomaaliya ay midowdo gacanta aanu is qabsano aanu ma arto wadankeeni hooyo aan nin kastaba uu ku xisaabtamo wadankiisa hooyo nin kastaba uu ku xisaabtamo Soomaalinimada hadduu alla yiraahdo oo shaqadiisa ay tahay oo hore noogu sheegay gudoomiyahayga oo hore noogu sheegay waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynahayga ee dalka Soomaaliya mudanahayga istaahilo inaan amaano maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay salaan saraan ku salaamayaa insha Allah mudanahayga anagoo ku hadlayo afka ee xisbiga mideynta Jubba iyo Shabeelle xisbiga uu yahay ka shaqeynta gargaaraha fuqarada iyo masaakiinta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada insha Allah inta meesha ka soo qayb gashay ayaan salaamayaa salaan kadib waxaan leeyahay walaalahayga meesha isugu yeerteen waad mahadsantihiin waxa aan ka tirsanahay xisbiga mideynta Jubba Shabeelle insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka gaarno guul weyn hadduu Ilaahay yiraaho waxaan doonaynaa dad muuqdo dalkooda iyo walaalahooda in ay wax u qabtaan cabduqaadir qayska Somali Cable TV Jidda Saudi Arabia magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa laga dareemayaa horumar dhinaca ganacsiga iyo ammaanka sida uu ku soo waramayo wariyaheena Cabdiraxiin Xuseen Aynlaawe magaalada Kismaayo waa magaalo xeebeed saaran badweynta Hindiya waxaana xarun ku meel gaar ah hadda ay u tahay maamulka Jubbaland magaalada Kismaayo waxa ay soo martay marxalado kala duwan amni iyo mid siyaasadeed magaalada waxaa ka socda dhismooyin kala duwan dadka magaalada Kismaayo waxa ay ku sheegayaan in xaaladda amni ee magaalada Kismaayo tahay mid la isku haleyn karo ciidamada kala duwan ee maamulka Jubbaland oo kaashanaya shacabka ayaa ka shaqeynaya nabadgelyada magaalada Kismaayo Sahra Maxamuud Cali iyo Maxamed Cali oo kamid ah ganacsatada suuqa Kismaayo ayaa sheegay in xaaladda ganacsi iyo midda amni ee magaalada Kismaayo ay tahay mid aad u wanaagsan iyagoo rajo weyn ka muujiyay in sida hadda magaalada ay tahay ay ka sii wanaagsanaato waxaa kamid ah shidaalka alaabtan bagaashka yaryarka dukaanka alxamdulillah kulli baan sanahay nabadgelyada aad u fiicanta wax dhiba ma qabno rumaantii haddana waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka shaqaysta magaalada Kismaayo oo waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku wareejiyo alaabta magaalada Kismaayo alaabaha ciidka sida alaabta dharka kabaha alaabahaas ayaan ka shaqeeyaa waxyaalaha yaryarootiga ayaan gadgadaa waka nabadgelyada aad bay u fiican tahay nabadgelyada ammaankeena wuu sugan yahay alxamdulillah waan aad baan ilaahay kuma darnaadee sidaan isa ka fiican ayaan rajaynaynaa insha Allah qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin xaaladda amni ee ka jirta magaaladan magacayga waxa waaye Cali Cabdi Nuur waxaan ku noolahay magaalada Kismaayo halkan waa meel laga adeegto ama afurka laga qaato magaaladana xaaladdeeda aad bay u degan tahay waa maalin lagu jiro waqti Ramadaan lagu jiro dadkana aad bay u faraxsan yihiin mid kale xigto waa mashquul magaalada inta badan xilliga waxa la joogaa ciyaalka dharka ciidda loo gadan lahaa haddii amni la helo kale kala dambeyn iyo nidaam way yeelanaysaa hadirtan amnigiina uu noo sugan yahay
waxaan dhihi karaa wax kaloo maanta aan toogayno ma jirto. magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ka soo kabanaysaa dagaalo iyo colaado sanado badan ka jiray waxaana hadda ay u muuqataa magaalo soo kabanaysa. Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe, Somali Cable, magaalada Kismaayo. Ikhlas Foundation ayaa afurin u sameysay qoysas gaaraya 150 qoys oo barakacyaal ah oo ku nool duleedka magaalada Muqdisho sidoo ku soo waramayo wariyaheena Cabdicaziz Cabdullaahi Riyali. halkani waa mid kamid ah xiriyaha maanta afurinta loo sameeyo deegaan garas baalay ee duleedka magaalada Muqdisho waxaana afurinta maanta ka faa'iideysanaya dad gaaraya 150 qoys kuwaas oo dhamaantoodba dhibaatooyin dhanka nolosha ay soo wajaheen. qaar kamid ah dadka ayaa ka warbixinaya raashinka maanta la guddoonsiiyay iyo sida ay uga faa'iideysteen afurinta ay u sameynayso hay'adda Ikhlas. waa qadhaysaan qaar badan Allah idin sii waa noo garaawtaan adduunka aqra Allah idin garaawo adduunka aqra mahada idin qabnaa qaar badan Allah idin siiyo ummadda muslimiinta waa noo garaawtaan gar idinkan adduunka aqra Allah idin garaawo wax khayr leh Allah idin siiyo Ikhlaasan umahad celinayna alxamdulillah rabbil caalamiin idin ummadda ilaahay wax khayr qaban Allah siiyo adduunka aqra la faad ila fawaaladkana janna Allah siiyo min taqaadir cali magaciisa Allah ma mahsantiin intii afurna la siiyay inta saayada soo gargaartay anka baydhaa ku soo gargaarnay oo ku soo qaxnay intaas oo in weyn oo gargaaran la gargaaray wax dhan aan haysana mahsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim hay'ad liira waxa maxadinayna Ikhlaas waxay ku maxsan yihiin maanta inay soo gaarsiin afur degdeg ah oo muddo oo 2 bilood inta joogno aan ku gaajaysanahay oo guntoo dhan inta isku soo wada kulantay oo meel kasta laga imaado tuulooyin ah oo gaajo inta lagu hayso oo 2 bilood inta joogno waan ugu maxad celinaynaa cid soo dhiibatay oo cid noo keentaba waxaan ugu maxad celinaynaa inay noo keenaan maanta afur degdeg ah raashin dhiibtay iyaga oo horjeerta si kor u ku imaan dib badan waa jira Allah dhibkaas ma ka weyn ninka ka dhintay adaga oo meel aad geysi ways makasta hadda waa mahadsantiin Allah intii wadanka Soomaalida iska mid ah u maleynaa iska mid oo iska doobana u maleynayna maska dooban makasta Allah degmada garas baalay intii noo qabat ninka noo qabta male aad ugu faraxsanahay hay'adan noo keenta galabta afurtaan kun maraan u mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh ka mahad celinaynaa waa bilaaw waxaan codsanaynaa dadka afurna ma haystaan fitro waxay isaga bixiyaan ma haystaan dhar iidaad ma haystaan maamulkeena u soo qaraabo u soo tuugsado dadkan iyagoo qaartii bishayso qaar bararay qaar rafaatana inta lagu soo daadiyay qabri kor saaran waa qabuuraha iga dambeeyay degan yihiin waa iska dhiban yihiin maamulkana uu maalinba maalin meel uga soo tuugsadaan insaas ay ku nool yihiin weli raashin qalayl ma yeelisay u yimideen dhar ma haystaan bac ma haystaan oo waa arkaysaa qabri ay kor degan yihiin hooyay ku caaw roob daymaad uu qaadaya waxay haystaan male ilaaha ma hadda iskale dadka ilaahay wax siiyay hay'adaha maxalliga waxaan ka codsaynaa inay ilmaha Soomaaliyeed oo iidayaan ku qabuuraha dushooda ku iidaay inay ku daraan gudoomiyaha deegaan garas baalay ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa goobta raashinka lagu qaybinayay ee Ikhlaas maanta ku sugnaa isagu wuxuu ka hadlayaa sida maanta afurintan looga faa'iideystay iyo sida ay u arkaan ka maamul ahaan meeshan cid ay ku haystaan ma jirto ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala iyo khaasatan al-Ikhlas aydan Ikhlas dadka masaakiinta walaalo hada bishan barakeysan Ramadan ugu soo deeqday inay afuriso kaamkan waxa mas'uul gabar la yiraahdo muxuu ahaay nadiifo ayada halkan xiradan u sameysay ayada buushishkan u sameysay ayada halkan dejisay ceel ay halkan ayada biyo free siisa dabacdala aydan ugu mahad celinaynaa al-Ikhlasna waxaan dadkan maadaama ay deganta in ka badan 250 qoys ka badan ayaa degan hadda caawan waxaan siinayna muxuu ahaay at least waa 150 qoys waxaan leenahay hay'adda Ikhlas waxaan leenahay adna kasii codsanaynaa maadaama barakacayaashu ay badan yihiin dhibaatooyina ay aad u badan tahay iyagana waxaan leenahay insha Allah taala wixii karaankooda dadkan masaakiinta u dadaaleen waxay u qaban karaan ha u qabteen aadna ugu mahad celinaa bacdallah taasay ka wada qaybo kamid ah xiriyaha barakaca degmada garas baalay ee duleedka magaalada Muqdisho Cabdicaziz Cabdullaahi Maxamed Cabdicaziz Somali Cable Muqdisho hay-adda bisha caas ee Imaaraadka ayaa deeq raashin bisil ay u qaybisay dadka liita ee ku nool degmada Shangaani sida uu ku soo waramayay wariyaheena Saalax Nuur hay-adda bisha caas ee Imaaraadka ayaa waxa ay howlo afurin ka wada degmooyinka gobolka Banaadir afurinta ayaa waxaa loo sameynayaa qaar ka mid ah dadka liita oo aan haysanin waxa ay ku afuraan waxaana ka faa'iideystay dad gaaraya ilaa 2,000 oo qofood kuwaasi oo ku nool gobolka Banaadir bisha caas ee Imaaraadka ayaa waxa ay ballan qaaday in ay wadi doonto afurinta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan
qaar ka mid ah dadka danta yar ee degmada Shangaani ee loo sameeyay afurinta ayaa ka mahadceliyay raashinka loo qaybiyay. weli mardaadi oo degan xaafadda degmada Shangaani aad baan ugu faraxsanahay sida oo markino sano walba noogu farxinayaan Hilaal Ahmar Imaaraati dadka soo dhiibay waxaan u rajeeynaa Ilaahay ugu baryeynaa Ilaahay intaan ka badan ilaalsiyo dadkii xaafadda aad ay maqsuud ugu yihiin farsamaalkan aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarta oo maanta oo juhdigan sameeyay oo kuwa masawirada sameynaya iyo kuwa kale oo qaybinaya aad u mahadsantihiin aniga barakacal mii magaalada waa jooga leh qof iska danyara afurkan inta hadda socdo waa helna alxamdulillah magaciga waxa la Xasan Umar Maxamuud oo ku nool degmada Shangaani afurkan oo walaalahayna Imaaraadka aad u faraxsanahay Ilaahay ajirka ka siiyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Marin Badal Xasan ayaa ugu mahadcelisay hay'adda Bisha Cas afurinta maanta ay u sameysay dadka ku dhaqan degmada Shangaani ee gobolka Banaadir. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Marin Badal Xasan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Shangaani waxaan u mahadcelinayaa Imaaraadka hay'adda Imaaraadka ee noo keentay deeqda afurka oo bisil dadka tabaalaysan ee reer Shangaani oo u baahan wax soo garab istaaga oo Ilaahay waafajiyay isaga iyagu inay bishar badan ka qayb qaataan afurintooda aan leeyahay Imaaraadka waa mahadsantahay hay'adaha kale oo islaamkana waxaan leeyahay ku daydeen marka waxaan leeyahay boqolkiiba boqol way mahadsantahay hay'adda Imaaraadka ma aan markii ugu horeysay oo raashin qaybin ay ka sameyso hay'adda Bisha Cas degmooyinka gobolka Banaadir. Saalax Nuur Soomaali Cable Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa deeq raashin gaarsiiyay dadka cuuriyaanka iyo kuwa aragala sida ay ku soo waramayso wariyahayna magaalada Jowhar Iqra Cabdullaahi Raage. deeqdan iskugu jirta raashin noocyadiisa kala duwan oo ka timid Cumaan ayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen u qaybiyay qoysas danyar ah oo iskugu jira Camoole iyo Cuuryaamiin kuwa oo ku kala nool afarta xaafadood ee degmada Jowhar waxayna deeqdani ku soo aadaysaa xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo qoysaskani ay yihiin kuwa aad ugu baahan xilligani qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ayaa u mahadceliyay deeqdani la soo gaarsiiyay كسمها مدحوينها أهنا مدحوين كحجانك علي عبد الله حسين كنتي هذه كما هذا دمان الدرجات اللي من نافذة اللي معرف بيد أهم بدأ تهير شبه اللي ماشان كم قطع كنتي مساكين وما كلام مغنمشان وحنا هذا علينا إن هذا ما هتجاني علينا إن علي الله ومدحوينها هير شبه اللي سحر ركله أو وناكسن أو عريانين تقبل كشبه الله ده أو نجسو جارسي داخل الدوان أو واحد كستابر بريس سكر تمر واحد كستاب كجران madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in ay gaarsiiyeen 800 oo naafa ah ummadaan ma aragtay sooqaadka joogto inay afur ka dhigtaan alxamdulillah ilaahay ayaa maadaas kale maanta waxaan oo suura gashay ilaa 800 oo qoys inaan u qaybino oo dadka cuuryaamiinta ay amba indhoolayaashii ama jiista ay dadkii aan u aragnay inay u liitaan ayaan maanta u qaybinay haddii ilaahay raalli ka noqdana waxa dhimanna biriya ma aragtay la qaybi doonaa deeqda guud ahaan soo gaartana 500 ay ahayd 800 aan maanta qaybinay wixii dhimana insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo biritaan qaybi doonaa xaqiiqdu waa uga mahadcelinaynaa dowladda Cumaan deeqdan raashinka ay dadkan tabaalaysan ugu tala gashay waxaan leenahay mahad idinka gaarto insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo saad arkaysiina ilaahay mahadaas kale si dhib yaray ma aragtay hawshu noogu socotaa dadkii aan u aragnay inay u jilcan yihiin ummadda ku nool degmadaanan dhahnay ha loo qaybiyo Allah ayaa mahadaas iskale waxaan naga go'an cid kasta wax sidaqaysanayso inaan si amni aan ku gaarsiino inaan dadkaan u aragnay inay u liitaan gaarsiinaan haddii ilaahay raalli ka noqdaan ballan qaadaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin xaqiiqdu waa deeq aad u wanaagsan aan isdhigi karno ma aragtay soonqaadka qaybtiisa dambe waa ku filan tahay ummadan haddii ilaahay raalli ka noqdo qoyska helo wax weyn ay u qaban kartaan isleenahay annaguna sidaana si amni ku gaarsiin doonaa iyo amaana haddii ilaahay raalli ka noqdo cid kasta wax sadaqaysaysa ummadan ma aragtay u soo niyeysatana si dhib yar waa u fududay doonaa annagana waana la shaqay doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo maad ka gaarta ayaan leenahay Iqra Cabdullaahi Raage iqraladan tifiga caalamiga Soomaali Cable xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Jowhar
hay-adda Ikhlas Foundation oo caawisa agoonta iyo dadka tabaaleysan ayaa waxay kormeer ku tagtay iskuulka ay wax ku bartaan arday badan oo aan haysan daryeel waxbarasho sida uu ku soo waramayo wariyaheenna magaalada Kismaayo Saabir Cabduqaadir Warsame. hay-adda Ikhlas Foundation iyo sidoo kale telefishinka Somali Cable ayaa booqasho ku tagay iskuul ay wax ku bartaan ardada waalid la'aanta ah iyo kuwa tabaaleysan ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. iskuulkan ay wax ku bartaan ardada waalid la'aanta ah iyo kuwa kale ee tabaaleysan ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa la aasaasay bilowgii sanadkii tagay ee 2016 waxaana aasaasay dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo si iskooda wax ku baro ardada waalid la'aanta ah iyo kuwa tabaaleysan ee wax ka barto iskuulka hoose dhexe sare ee Tayo ee ku yaala magaalada Kismaayo. dhismaha ay wax ku bartaan ardada waalid la'aanta ah iyo kuwa tabaaleysan ee ay dhalinyaradan u istaageen in ay wax baraan ayaa ah mid kirada looga qaato macallimiinta sida iskooda wax u barto caruurta waalid la'aanta ah iyo kuwa kale ee tabaaleysan ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. iskuulkan oo ay wax ka bartaan in ka badan 716 arday ayaa waxaa si iskooda wax u baro dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waana ardo dhammaantood aan awoodin in ay iska bixiyaan iskuulaadka lacagta ah ee ku yaala magaalada Kismaayo. mar aan mikrofoonka telefishinka Somali Cable la dhex qaaday qaar ka mid ah ardada waalid la'aanta ah iyo kuwa kale ee tabaaleysan ee wax ka barta iskuulka hoose dhexe sare ee Tayo oo ku sugnaa gudaha iskuulka ayaa waxa ay ka codsadeen hay-adda Ikhlas Foundation in ay ka caawiso dhanka waxbarashada haddii ay noqon lahayd buugaagta qalimaanta iyo dharka uniformka ah ee loo xirto iskuulka waxaana ay intaasi raacsadeen in hay-adda Ikhlas Foundation ay ka codsanayaan in ay ka farxiso maalinta ciida maadaama qaar ka mid ah ardada wax ka barato iskuulka hoose dhexe sare ee Tayo ee isugu jirto waalid la'aanta iyo sidoo kale danyarta aysan jirin cid ka farxinayso maalinta ciida. magacaygu waa Maxamed Qaliif maxay agoon iyo rajo hay'adda Ikhlas Foundation waxa ku codsanana inuu macallimiinta caawiyaan oo boos noo gadaan annagana na caawiyaan. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Raxmaan Abdixakiin Axmed oo dhigata dugsiga hoose sare ee dhexe ee Tayo waxaan rabaa hay'adda Ikhlas inay taakuleyso Ikhlas Foundation waxaan salaamayaa TV-ga Somali Cable iyo waliba wariyaasha iyo macallimiinta iyo ardada dhan inta Soomaaliya. bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu ku bilaawayna magacaydu waa Aadan Cusmaan Cadow oo dhigta dugsiga hoose dhexe sare ee Tayo oo ah fasalka 7aad waxaan u mahadcelinayaa hay'adda Ikhlas Foundation iyo Somali Cable oo noo soo booqday dugsiga hoose dhexe sare ee Tayo oo ahna iskuul ku dhigana free waxbarashada inaan naga caawiso dhanka miisiha iyo booskan taakulada booskan u yar. assalaamu calaykum magacaygu waa Qamar Maxamed Idaan waxaa dhigtaa iskuulka hoose dhexe sare ee Tayo hay'adda Ikhlas Foundation waxay naga caawinaysaa waxbarashada Somali Cable oo soo booqday xilligan waxa asna naga caawinaya maadaama aan iskuulka ku dhigano waxbarasho lacag la'aan ah. bismillah anoo ku bilaabo magacaygu Maxamed Xasan Xirsi hay'adda waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe sare ee Tayo waxaan ahay fasalka 7aad hay'adda Ikhlas Foundation waxaan ka codsanaynaa inayna taakuleysho taasoo naga caawiso taasoo meesha nagu yartahay iskuulka waxaa ka rabnaa inay meel weyn boos weyn na siiso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم magacaygu waa Cabduqaadir Farca Cabdullaahi waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe sare ee Tayo waxaan rabnaa hay'adda Ikhlas Foundation inay naga caawiso dharka ciida iyo khalabaadka iyo uniformka iyo buugaagta iyo qalimaanta iyo booska dhulka iskoolka iyo bir inaan noo dhistaa kacsanayna. Maxamed Gumare waa maamulaha guud ee iskuulka hoose dhexe sare ee Tayo ee ay wax ku bartaan
ardada waalid la-aanta ah iyo kuwa tabaalaysan ee u baahan in laga saacido dhanka waxbarashada iyo noloshooda kale waxaana uu hay-adda Ikhlas Foundation ka codsaday in ay ka caawiso dhanka waxbarashada ilmaha waalid la-aanta ah iyo kuwa kale ee tabaalaysan ee wax ka bartay iskuulkan sida volunteerka ah ay dhalinyaradan aqoon-yahanada ah wax ku baraan ardada isugu jirta waalid la-aanta iyo kuwa kale ee danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaanu intaasi raacsaday in hay-adda Ikhlas Foundation ay ka caawiso mushaar bixinta macallimiinta maadaama si volunteer ay wax ku baraan ardada iyo sidoo kale haddii ay awoodo bixinta kirada dhismaha ay wax ku bartaan ardada waalid la-aanta ah iyo kuwa tabaalaysan ee u baahan in laga saacido dhanka waxbarashada iyo noloshooda kale waxaan ahay maamulaha dugsiga iskuulka baalkii hoose dhexe tayo muhiimadda loo furay iskuulkan waxay tahay in laga hortago ardadan danyarta in laga hortago macnaha inay noqdaan tuugo qaadic dariiqiyo dadka inay dhibaan sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan ku soo xareeno dugsigan oo aasaasan dhalinyaro oo aqoon-yahan ah oo reer Kismaayo ah sidoo kale ardada waxay ka kooban yihiin arday qaxootiyada ka soo laabtay kuwa agooma ah iyo kuwa danyar ah iyo rajooyin muhiimadda diinta islaamkana waa lagu amaanay qofkii macnaha kafaalo qaado agoon in Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu yiri ana wakaafilul yatiim kaatayni fil janna qofka macnaha agoon kafaalo qaaday jannada waxaan ku nahay saas fartaas ayaan kala dheernay macnaheeda kafaalo qaadda ma ana ardayga macnaha siisi cunto asiisimo waa inaa wax bartaa dugsiga hore wuxuu ka kooban yahay arday waxa dhigato gaaraysa 709 arday oo dad oo reer Kismaayo ah marka hay'adda Ikhlas Foundation iyo Somali Cable TV-ga waan ugu mahad celinaynaa booqashada inta noogu imaadeen waxaan ka codsanaynaa hay'adda Ikhlas Foundation inta waxa ka howlgasho macallimiin gaaraysa 14 macallin kulligood waa dhalinyaro ma haystaan wax taakula ah oo macnaha oo salary ma qaataan waxaan ka codsanaynaa hay'adda Ikhlas Foundation inay macallimiinteena naga taakuleyso mushaarkooda because dugsigan waxaan ku haynaa arday fara badan sidoo kale iskoolka komboonka uu yar yahay waxaan jeclaan lahayn inay meel noo kireeyaan meel weyn ama ay noo dhisaan ama dhul ay noo gadaan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee soonka inay caawiyaan agoomahan ay ka farxiyaan ciidda iyo xaqul ciidka iyo waxaas inay u soo tuuraan iyo raashinba dadkoo iska masaakeysan xilli xun duruuf adag lagu jiraa Dr. Harbi maamula ku xigeenka iskuulka hoose dhexe sare ee Tayo ee ay sida lacag la'aanta ah wax kaga bartaan ardada waalid la'aanta ah iyo kuwa tabaalaysan ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa hay'adda Ikhlas Foundation ka codsaday in ay ka caawiso dhanka waxbarashada ilmaha iyo sidoo kale mushaar bixinta macallimiinta isagoo intaasi ku daray in hay'adda Ikhlas Foundation uu ka rajeynayo in ay u dhisto ardadan iskuul madax bannaan oo ay gaar u leeyihiin ardadan maadaama dhismaha ay hadda wax ku bartaan uu yahay kiro bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah nabiyina maxamed wa ala alihi saxbihi wasallam ilaa mahad iska leh waxaan halkan ugu mahad celinayaa maanta oo soo booqday telefishinka Somali Cable iyo hay'adda Ikhlas Foundation aad baan ugu mahad celinaynaa booqashada inay soo booqdeen dugsiga hoose dhexe sare ee Tayo ay nagu soo booqdeen iskuulkan ka taariikh ahaan haddaan ka sheekeeyo iyo marxaladii uu soo maray iskoolka Tayo waxaa la furay sanadka 2016 bishii koowaad 16 bishii koowaad 2016 sanad iyo bar buu hadda jiraa rag aqoon-yahana oo dhalinyaro oo iskaashaday oo jaamacadaha dalka ka soo baxay iyo kuwa dibaddaba oo iskaashaday baana furay oo si volunteer leh ku shaqeynayo ardada Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo danyarta iyo agoonta Soomaaliyeed waxaan qorin caawiyaan u istaagay ayaa furay meesha ay ka fureen waa meel kira ah oo guri markaas ayada dhisna ama goomaanta ama dhisma dawladeed ama ahan meel kira oo guri shakhsi leeyahay buu ahaa ay ku bilaabeen ayagoo jeebkooda waxay ka tabaruceen kuraas iyo qalabkana ku soo gaday kiradana ku bixinayay frinteerka aqoontoodana maxaan qorshe ku saaciidayay ardada Soomaaliyeed ee barahayay danyarta iyo aqoontaba isku jira aad iyo aad baan markaan ugu mahad celinaynaa hay'adana soo booqatay oo Ikhlas Foundation iyo wakiiladeeda waan u mahad celinaynaa iyo TV-ga telefishinka Somali Cable
waxaan ka codsanaynaa oo hay'adan ka codsanaynaa maadaama ay taakulayso dadka dhibaataysan danyarta ah iyo dadka maxaan kore sheegay xagga waxbarashada ay ka saacido agoomaha iyo dadka aan waxbarashada fiiga iska bixin karin ay caawiso waxaan ka codsanaynaa in iskuulka ay taakulayso insha Allah ta'ala sa ilaahay ka rajeynino position iyo campus iskuulka uu leeyahay oo xarun kalena ay u dhisto insha Allah ta'ala taasna waan ka codsanaynaa maadaama hadda meeshaan ku jirna ay tahay meel kira taasna waxaan ka codsanaynaa hay'adda insha Allah ta'ala inay abiilka nagaas naga aqbali doonto maxaan korshe macallimiintana maadaama ay volunteer ay ku shaqeeyaan rag aqoonyahanno iskaashado meesha aasaasay yihiin dadka agoonta iyo danyarta Soomaaliyeed ay wax barayaan inay maxaan korshe wixii mushaaraadka ay ka taakuleeyaan maadaama ay hayaan shaqada ay dawlad qaban lahayd insha Allah ta'ala taas ayada ayaan ka codsanayaa Saabir Cabdulqaadir Rursame Saabir Honesty telefishinka Somali Cable magaalada Kismaayo odayaal wili waxaad si toos ah inooga daawanaysaan telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka Great Britain iyo wariyaheena Salim Salaad Dhoore maalintii shalay 8 bisha Juun ee sanadkani 2017 ayay ahayd maalinta loogu talagalay in ay bulshada wadankani Britain u codeeyaan in ay soo doortaan ra'iisul wasaare iyo golo baarlamaan cusub oo ay leedahay wadankani Britain xisbiyada kala duwan ee wadankani Britain oo muddooyinkii dambe isku dayayay in ay soo jiitaan maskaxda bulshada ku nool wadankani Britain ayaa maalintii shalay waxay ahayd maalin runtii aad u adag isla markaasina aakhirkii ay keentay kadib markii la tiriyay u codeynta ay bulshada wadankani Britain ay sameeyeen in xisbi uusan si wanaagsan ugu guuleysanin ama aan la helin kuraastii loogu talagalay oo ah in lagu dhiso dawlad wadankani Britain xisbiga conservative-ka ayaa waxa ay heleen 318 walow daqiiqadii ugu dambeeyay xaafadda Kingston oo ka tirsan magaalada London ay xisbiga conservative-ka ay markaas ay ku guuleysteen dhibcahoodan ay markaas u gaari doono 318 mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga conservative-ka xisbiga Labour-ka ayaa waxa ay heleen 261 isla markaasina xisbiga Liberal Democratic-ga ayaa waxa ay ku jiraan kaalinta saddexaad waxa ayna heleen 12 kursi oo golaha baarlamaanka xisbiga SNP ee Scotland ayaa waxa ay heleen 35 dhibcood halka xisbiga DUP oo ka socda North Ireland iyagana ay heleen 10 kursi oo kuwa baarlamaanka xisbiga conservative-ka ayaa waxa uu yahay xisbiga ugu codka badan isla markaasina ay leeyihiin 44% codka bulshada wadankani Britain ku nool xisbiga Labour-ka ayaa waxa ay ku jiraan kaalinta labaad 41% halka xisbiga Liberal Democratic-ga iyagana ay leeyihiin 8% xisbiga SNP ayaa waxa ay heleen 3% u codeynta ay markaasi maalintii shalay ay sameeyeen bulshada kala duwan ee ku nool Scotland kadib markii doorashooyinka ay dhamaadeen ayaa waxa la soo gudbiyay tirada dadka ku nool wadankani Britain iyo sida ay u kala codeeyeen oo ay ugu codeeyeen xisbiyada kala duwan ee wadankani Britain xisbiga conservative-ka ayaa waxa cod siiyay 13,650,900 oo qofood xisbiga Labour-ka ayaa iyagana waxa ay heleen codka 12,858,652 cod xisbiga Liberal Democratic-ga ayaa iyagu waxa uu codeeyay 2,367,048 cod xisbiga UKIP ayaa iyaga waxa uu codeeyay oo kaliya 593,852 cod halka xisbiga Green Party-ga loo yaqaan iyagana ay codeeyeen 524,604 cod taasi waxa dareemi kartaa in dadka maalintii shalay soo baxay ay aad u badnaayeen walow qolooyinka inta badan sida aadka kaga hadla siyaasadda wadankani Britain ay sheegeen in dad badan aysan soo bixin maadaama dadka wadankani Britain ku nool ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 63 milyan oo qofood oo ah dadka dhalashada wadankani Britain haysta iyo kuwa u dhashay wadankani Britain kadib markii doorashooyinka ay sidaas ku soo gabagaboobeen ayaa maanta waxaa bilowday habkee noocee ah ayaa loo dhisi karaa dawlad wadankani Britain maamusha
ra-iisul wasaaraha waddankani britain Theresa May ayaa maanta 12:15 xilliga waddankani britain waxa ay la kulmi doontaa boqoradda waddankani britain Queen Elizabeth II isla markaasina ay ka codsan doonto in ay soo dhisto dowlad wadaag ah oo ay markaasi ay doonayso in ay wadaagaan xisbiga lagu magacaabo DUP oo ah xisbi ka dhisan waddanka Northern Ireland. xisbigaas oo lagu magacaabo Democratic Union Party ayaanan ahayn xisbi sidaasi loo yaqaana. xisbigaas ayaa waxaa haysata haweeney lagu magacaabo Arlene Foster isla markaasina ay u badan tahay in ay ku biiraan xisbiga conservative-ka isla markaasina dowlad lagu dhawaaqo. waxa ay noqon doontaa 328 oo ah codka markaasi la doonayo in dowladi lagu dhiso. haatanna waa xubinteeni kickoff ee cayaaraha iyo isboortiga. habeenkan caawa ayaa waxaa la filayaa in cayaar aad u xiiso badan ay dhex marto wadamada Argentina iyo wadanka Brazil. cayaartan oo isreebka cayaaraha adduunka ayaa kooxda Argentina haddii laga guuleysto waxaa aad u sii liidan doona kasoo qaybgalkooda cayaaraha adduunka ee sanadka foodan ugu soo haya lagu qaban doono wadanka Ruushka. kooxda Argentina ayaa hore waxa ay la kulmeen jab aad u tiro badan, taasina ay keentay in ay markaasi doonayaan in ay badiyaan oo kaliya. sidoo kale kooxda Manchester United ee wadankan Ingiriiska ayaa waxa ay wada hadalla maanta ay kula jiraan kooxda Real Madrid. kooxda Manchester United ayaa waxa ay doonayaan inay iibsadaan laacibka kooxda Real Madrid Morata oo lacagta haatan loo taagan yahay ay tahay 60 milyan oo poundka lacagta wadankan Britain. sidoo kale Costa waa ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Chelsea ayaa isagana maanta waxa uu wada hadalla la leeyahay kooxda AC Milan ee wadanka Talyaaniga. sidoo kale ururka kubadda cagta ee wadanka Sacuudiga ayaa waxa ay apologize ay ka gudbiyeen ama raali celin kooxdooda Sacuudiga oo ciyaar wada yeelanayeen kooxda Australia oo ka soo horjeestay in hal daqiiqo la xusuusto dadkii ku dhintay magaalada London Bridge. ururka kubadda cagta ee Sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen arintani in ay tahay mid aysan markaasi ka dambeenin ururka kubadda cagta ee wadanka Sacuudiga. waa Saalim Saladoore, wararkii wadankani Great Britain iyo xubinteeni kickoff ee cayaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee wadankan Britain. caashe axmed cabdalle oo hore usoo noqotay xildhibaan dowladii ku-meel gaarka ee Soomaaliya iyo siyaasi Cali Axmed Faatax iyo aqoon-yahano kale oo kasoo jeeda deegaanada Sool iyo Sanaag ayaa waxay cambaareeyeen weerarkii ka dhacay deegaanka Af Urur oo ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay kasoo gaareen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wariyaheena Cali Maxamed Abuukar ayaa warbixintan inoo diyaariyay. beesha warsangeli oo ah beel ka soo jeeda deegaanada Sool iyo Sanaag ayaa cambaareysay weerarkii ka dhacay deegaanka Af Urur ee maamulka Puntland. beesha ayaa waxa ay eedayn dusha uga tuureen maamulka Puntland oo ay sheegeen in aysan mas'uuliyad adag iska saarin deegaanadaasi. caashe axmed cabdalle oo hore uga tirsanaaday dowladii ku-meel gaarka ahayd iyo siyaasi Cali Axmed Faatax iyo dad kale oo ka soo jeeda deegaanada Sool iyo Sanaag ayaa ka hadlay weerarka deegaanka Af Urur ku dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda Al-Shabaab. waxaan u qaadanaynaa anaka maalin madow bay u tahay gobolka Sanaag iyo gobolka Bari oo dhalinyaradoodii iyo saraakiishoodii lagu xasuuqay gabdho iyo wiilalba magaalada Af Urur. maaha xasuuqani haddan oo kaliya maahan, wuxuu bilaabmay June buu bilaabmay 2009 buu bilaabmay xasuuqu bilaabmay. xasuuqaasi waa nagu socday ilaa iyo intaas. wax badan baan warbaahinta ka qaylinay. Puntland waxay ka ahayd qayb bay ka ahayd xasuuqa marka laga reebo shabaabna waa xasuuqayeen, Puntlandna waa xasuuqaysay. marka waxa weeye labada waxaanu noqonay hashii laba midig la dheelmay baan noqonay. maanta bas tan waaba mid ka daran maanta oo la mid ah maxaa la yiraahdo xasuuqyadii adduunyada ka dhici jiray la mid ah. waa masiibo ku habsatay dadkii iyo shacabkii Soomaaliyeed. magacaygu waa Cali Axmed Faatax, madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari. dhibaatada ka dhacday dowladda Puntland ay ka tahay mas'uul
dad fara badan oo askar ah oo si qaflad ah lagu laayay dad shacaba oo lagu waxyeeleeyay magaaladaas oo dhan xasuuq weyn ka dhacay ayaanu leenahay ilaahay dadkii halka ku geeriyooday sabir iyo iimaan ilaahay hana ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa ka xumahay xasuuqa meesha ka dhacay oo dad kaana loo geystay waxay ku tusaysaa taasi Soomaaliya foodada ay ku jirto dadkani 1992 ayaa waxa Soomaaliya jooga oo dhami isugu tageen buurahan dhulkan ay jooga ay hadeerto maanta ku xasuuqaya dadka qabiilka reerka meesha degan qabiilka Warsangeli yiraahdo ayaa meesha ka saaray iyo ilaahay cid taqaanay argagixiso wala Mareykan baa oran jiray wala Ingiriis wala Mareykan xabashi wala cid kale anagu nabadgeliyaan barigaas ka saaray maalintii ay iska saareen ilaa yoomana hada section baa saaran internationally laba maamul ayaa labada dhinac loo sameeyay labada maamul waxay sameeyaan waxa weeye waxa la hubaa 100% in labada maamul ay ka dambeeyaan ayna ayagu ay ku shaqeystaan masiibadaas caamka ah ee dhacday ee Soomaaliya oo dhan maanta taabanaysa waa mid in badan soo jirtay muddana soo jiitamaysay taa waxa ka sii daran maamulkii dhamaa ee meesha lagu abtirsanayay joogay ee dadka meesha keenay oo aan xataa aan tacsi iska daa wax kale tacsi aan gaarsiin ehelkii iyo qaraabadii iyo maatadii iyo dadka dhintay ay ka tageen iyo Soomaali midna waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah khaasatan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre in dadka deegaanada uu tilmaamay madaxweynaha North State ee Sool iyo Sanaag aanay labada maamul ee ka jira ee Somaliland iyo Puntland aanay wax taageero ah iyo wax xil iyo hooyo aan midna ku qabin xaqi iyo xuquuqdii ay lahaayeen ay iyagu dulmiyeen marka inaan indhaha ka laaban arintaana si degdeg ah ay warbixin uga keenan ayaanu ka codsanaynaa magaalada Af Urur ka mid ah gobolka Bari kuna taal galbeedka Bari waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed iyo ehladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii intaba samir iyo iimaan Allah ka siiyo dalka xun waxa shinimada leh xasuuqa ah aad iyo aad baan uga xunnahay ugana tiraanyasanahay run ahaantiina waa wax masuubooyin iska jira oo hadda Soomaaliya intooda badan ka dhaca laakiin waxa aad iyo aad wax loola yaabaa wax laga xumaadana sida maamulka Puntland ay uga hadashay siba wasiirka amniga oo wasiirka u xilsaaran amniga gobolka sida uga hadlay sida uu inkiray aamusnaanta kale oo dawladda dhamaanteed ee Puntland ay ka aamusan tahay aanay ka hadlin gurmad la'aanta sidoo kale oo maalintii labaad la maraayo oo aanay wax gurmada aan laga arag oo laga haynin ilaa ciidamo gaar ah oo si maaragtay deegaan ahaan ugu soo gurmaday maaha qasaaraha ka dhashay weerarka deegaanka Af Urur ayaa soo ifbaxay maalinimadii shalay iyadoona mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka tacsiyeeyay dhanka kale war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in tallaabo looga qaadi doono kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi oo ku dhuumaalaysanaya buuraleyda Galgala Ali Muhammad Abukar telefishinka Somali Cable Nairobi guud ahaan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad si toos ah uga daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studio magaalada Nairobi oo aan idin akhrinayay aniga Cabdullaahi Axmed Cali aniga dhammaan wariyaashiga la qayb qaatay tabinta warka dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim